Somali Magazine saad ka war haysaanba baryahan waxaa aad loogu falanqeeyaa social mediaha Facebook hadday noqoto social mediaha kuwa kale aad ayaa loo falanqeeyaa Somali Magazine dadka qaar baan aqoonin dadka waaweyn dadka social mediaha aan aad ula soconin aad ugama warhayaan Somali Magazine waa dhalinyaro isbahaysatay oo aqoon-yahan ah waxay suubiyaan sanadka kulba lagu jiro bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa 12 bilood waxay qoraan oy ururiyaan dadka Soomaaliyeed ee ugu caansan dunidan aan joogno meel kastoy kaga nool yihiin sanadka dadka hadallada dhaxalgalka ee xikmadu ku jirta isticmaala dadka cilmiga diiniga soo gudbiya dadka waxyaabo badan oo hal abuur ah sameeya ayay daba galaan nimankaasi waa niman dhalinyaro ah oo is-abaabulay dhalinyarada Soomaaliyeedna maalinba maalinka ka dambaysa horumar bay gaarayaan aydiyadooda maskaxdooda ay horumar ku sameynayaan waxay ka kaaftoomayaan dabagalkii ama inay wax ka sugaan odayaasha iyo siyaasiyaasha iyo dadka waaweyn ee timekoodii intii badnaa soo qaatay inay wax ka sugaan ayay dhalinyarada Soomaaliyeed iska ilaaliyaan haddaba dhalinyarada Somali Magazine ayagoo arrintaa ka duulaya waxay qorsheeyeen oy go'aansadeen inay Soomaalida u soo gudbiyaan sanadka dhammaaday dadkii ugu horumarsanaa ayagoo u qaybiyey 8 qaybood waxay ka bilaabeen dadka siyaasiyaasha ah ee siyaasadda ka hadla dadka ugu caansan ama 10 qof ee ugu caansan ayay soo ururiyaan 10 qof ee ugu caansan ayay soo ururiyaan oy soo bandhigaan sidaad arkaysaanna waxay soo bandhigeen 10kii qof ee ugu caansanaa siyaasiyaasha Soomaaliyeed ee sanadka aad loo hadalhayay social media uga hadlayay waxyaabo siyaasadda soo bandhigayay ayay aad u soo bandhigaan nimanka dhalinyarada ah Somali Magazine qaybta labaad waa qaybta culimada ayay ka dhigaan oo culimo u diiniga Soomaaliyeed ee sanadka muxaadaraadkooda nashaadootkooda dacawiga ah ee diiniga ay aad u caan baxaan ee ummadda Soomaaliyeed aad ula hadlay wax ugu soo gudbiya ayay soo bandhigaan 10 sheekh ee ugu horeeya ayayna soo bandhigaan qaybta saddexaad waxay ka dhigaan dadka ganacsatada iyo businessmanka ah ee rag iyo dumarkaba leh 10 qof ee ugu shaqada wanaagsan ee businesska horumarka ka samaysay ayay soo bandhigaan qaybta afraad ee soo bandhigaan waxa weeye waa qaybta aqoon-yahanka iyo professorada ugu caansanaa sanadka ee ummadda Soomaaliyeed hadallo dhaxalgal ah ama waanooyin dhaxalgal ah u soo gudbiyey dadka dhakhaatiirta ah dadka doctoriska ah dadka diktoorada ah ee aqoon-yahanka ah bay qaybta afraad ka dhigaan qaybta shanaad waxay ka dhigaan wariyeyaasha iyo dadka warbaahinta wararka ka soo gudbiya ayay ka dhigaan waa qaybta shanaad qaybta lixaad waxay ka dhigeen oo sanadkan welibana 2021ka waxay ka dhigeen qolada ayaga laftoodu sida wariyaasha u shaqeeya ee qabta waxyaabaha ay shacabku u baahan yihiin iyo baahida shacabka soo gudbiya ee wariyaasha ayagana ka agdhow ayay soo gudbiyaan ay ka dhigaan qaybta lixaad toddobaad waxay ka dhigaan isboortiga iyo dadka dhalinyarada ah ciyaartooyada iyo ciyaaraha dhacay iyo nashaadaadka ciyaaraha soo gudbiya ayay ka dhigaan 10 qof ee ugu caansan qaybta 8aad ee ugu dambaysana waxay ka dhigaan entertainmentiga iyo dhalinyarada soo gudbisa waxyaabaha dadka farxadda geliya iyo dadka maaragtay waxyaabaha ay ku mashquulaan ay isku dhaafiyaan murugaha iyo waxyaabaha ayay ka dhigaan nimanka dhalinyaradii waxay sameeyeen shaqo cajiib ah oo dawladuhu ay sameeyaan oo dawladaha caalamku sameeyaan oo kharash u sameeyaan oo xafiisyo u sameeyaan ayay ayagu inta isxil qaadeen ba iyagu sameeyeen
mathalan haddaan soo qaadano dhalinyarada soomaaliyeed ee la yidhaahdo somali magazine qaybta ugu horeysa ee siyaasadda qaybta ugu horeysa ee siyaasiyiintii ugu horreeyey ee ugu caanbaxay waxay ka dhigeen madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayay ka dhigeen. waxaa kale labadii madaxweyne ee hore xasan sheekh iyo sheekh shariif sheekh axmed waxaa kaloo ka dhigeen ra-iisul wasaarihii hore oo 10kii hore ku jiray iyo siyaasiyaal fara badanba. qaybta culummada waxay soo qaateen sheekh maxamed cabdi umal, waxaa kaloo soo qaateen sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi, waxaa kaloo soo qaateen sheekh abubakar xasan maalin, waxaa kaloo soo qaateen sheekh cismaan xidig, waxay soo qaateen sheekh xuseen cali jabuuti, waxay soo qaateen dhalinyaro fara badan sida yarkii daaciga ahaa ee cumar faaruuq ama cumar oo kaley soo qaateen. waxay soo qaateen sheekh mustafa xaaji ismaaciil iyo culummo kale oo fara badan oo magacyahooda qaar aanan aqoonin ayay soo qaateen oo 10ka sheekhe ugu horreeyey ugu saamaynta badnaa 2021kii ayay soo qaateen. qaybta dhakhaatiirta oo kale iyo dadka aqoon-yahanka ah waxay kaloo ka soo qaateen brofesor dalxa oo kale oo aqoon-yahamiinta ka mid ahaa iyo brofesoro fara badan oo xagga dhakhaatiirta iyo xagga cilmiga labadaba ku caanbaxay ayay ka soo qaateen ayagana. xagga kale wariyaasha oo kale wariyaal fara badan ayay soo qaateen, wariyaal fara badan oon tiradooda la soo koobayn ood arki doontaan ayay soo qaateen. xagga kale nimanka oo activisityga ah oo bulshada waxyaabaha baahidooda ah soo gudbiya welibana barnaamijyo khaasa awoodda saara waxay soo qaateen dhalinyaro fara badan. laakiin waxaan idinka magacaabay cabdicasiis riyali ayaan idinka magacaabay oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed u haya runtii xaqiiqatan wax dowlad ayna qabanin oo ummaddii soomaaliyeeda kala dhuntay isu raadiya. qolyaha isboortiga oo kale ayagana dad fara badan ayay ka soo qaateen ood idinkuna ku arki doontaan. lacalla wejiyadooda inaad taqaanaan baa laga yaabaa, magacyahooda inaad taqaanaan baa laga yaabaa, sawiradooda ayaan idiin soo bandhigaynaa. qolada entertainmentiga oon aad u aqaano yaa laga soo qaatay talo qoladaas. qoladaa waxaa laga soo qaatay dad aad u fara badan. waxaa ka mid ah cabdiaskari youtube, waxaa ka mid ahaa xasan toob, waxaa ka mid ahaa shaadiye sharaf iyo saygeeda cabdifataax oon habeene dhoweyd ka soo hadallay ayaa ka mid ahaa. waxaa ka mid ahaa khalaa'iq fara badan oon la soo koobi karin oo entertainmentiga sameeya. nasre abtidoon oo kale ayaa ka mid ahaa. haddaba in waxyaabahaas lasoo bandhigo oo la kaydiyo oo dadka laga warhayo soomaaliyeed ee shacabka iyo ummadda soomaaliyeed wax u haya in laga warhayaa maxay faa'iido ka tahay? waxay faa'iido ka tahay inay ummadda soomaaliyeed ogaadaan dhalinyaro ayaga lamid a dhalinyarada tahriibaysa iyo dhalinyarada maaragtay fadhi kudirirka fadhiya inay ogaadaan kuwa ayaga lamid ihi inay ummaddan soomaaliyeed wax badan u hayaan oo horumarkooda ka talinaya oo wanaagooda ka talinaya. waa dukumiinti ay isticmaali doonaan ilmaheennu ilmaha ay sii dhalaani ay isticmaali doonaan wey ayay dhalinyaradaasi suubiyeen oy dadka u keydiyeen. hal sanana mayna suubinine sanad walba way suubiyaan, marka uu dhammaado ayayna soo bandhigaan. waxaa isaguna mudan in la ammaano cabdiaskari youtube oo isaguna aad uga hadlay qorshaha iyo arrimaha isaguna soo qaata oo ku dadaala. haddaba annaga waxaan leenahay dhalinyarada aadka u qiimaha badan aan ku dayanna dhalinyaradeenna kale oo annagana bulshada qaybta ay ka qabteen qaybo aan ahayn oo fara badan baa bannaane aan qof walow dhalinyaro ah intaynu tahriib iyo fadhi kudirir iyo qiila waqaala iyo siyaasad madaxa dadka xanuujisay oo odayaashii horeba madaxa ku xanuunay intaynu daba ordayno intaan waxaa iskaga baxano nin walowba intaad taleefankaaga qaadato ummaddan wax u kaydi, adigana naftaadi iyo noloshaada ka dabar. ogowna inay jirto wax aad adigu ummaddan u qaban karto adiga oon cidna u daba fadhiisanin oo welibana ummaddu intay
kugu barato ood ku noqoto caan iyo social inaad ku noqoto qof ah oo meel walba laga yaqaano inay xataa adduunyadaadii iyo horumarkaagii nololeed isbeddel uu ku imanayo lianna maanta meeshaad tagto oo soomaali degto markaad barnaamijyada wiilasha ka shaqeeya waa laga yaqaanaa waana la garanayaa waana lagu martigelin waana lagu soo dhoweyn intaa waxaa u dheer social mediahii bay isticmaalayaan oo codkoodan iyo hadalkoodan baaba u gadmayaba waxaa kaloo faa'iidada kale ahay sameeyeen inay ummaddan u kaydiyeen ilmaheeda iyo dadka gadaal ka imanaya iyo da'yarteeda iyo dadka dib ka iman doona taariikh aad u wanaagsan ay ogaan doonaan dadkoodii madaxda ahaayee wanaagsanaa ay ku baran doonaan ay ku ogaan doonaan marka caawa arrimahaasaan rabay inaan ka mahad celiyo oon ku soo qaato dhallinyarada ugu mahad celiyo kuna baraarujiyo dadka u sheega inay dhallinyaradaasi ummadda soomaaliyeed wax weyn u qabteen